السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا لهنتي نبأ داود يا الملك الصاد عالم كدوتان كسو دوادا وردق محكمة عالمية أدونك لو ملعب International Court of Justice ayaa waxa ay soo saartay jadwalka dhageysiga ee maxkamadeynta ama dacwadda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya maalinta isniinta ku baagan 15-ka bisha 3 sagaalka galabnimo waxaa bilaabanaya dhageysiga maxkamadda waxaana maalintaas la dhageysan doonaa wakiilada ka socda dowladda Soomaaliya maalinta xigta 16-kana sidoo kale 4 galabnimo ka bilaabata ilaa 12-ka aan dhahay 6 galabnimo waxaa la dhageysan doonaa iyadana dowladda Soomaaliya maalinta Arbacada waa la nasan doonaa waxaa la soo noqon doonaa maalinta Khamiista maalintaas Khamiisayadana waxaa laga dhageysan doonaa dacwadda dowladda Kenya maalinta Jimcaha ah ee ku beegan taariikhda 19-ka deena waxaa laga dhageysan doonaa dowladda Kenya weegandigaas waa la nasan doonaa waxaana la soo noqon doonaa maalinta xigta isniinta ah waxaana dacwadda ku hormari doona maalintaas oo u noqon doonta maalinta ugu dambeysay ee dowladda Soomaaliya wakiilada ka socda sidoo kale maalinta ku xigta ugu dambeysa ee Talaadada ah waxaa iyana laga dhageysan doonaa dacwadda wakiilada ka socda waddanka Kenya haddaba daawadayaal adigan daawanaya warkan sidee kula tahay arrintaasi waxaan idinka codsanaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inaad u soo duceysaan wakiilada Soomaaliya metelaya inay dacwaddaasi ku guuleystaan oo dhagarta Kenya iyo dadka dabadhiifayaasha ay wadaan oo ay doonayaan inay dhulka iyo biyaha Soomaaliyeed ku boobaan looga hortago waan hubaa inay Kenya ku jiri doonto meeshaas laakiin marmasyo fara badan oo in muddaaba socday ayaa doonayaan inay halkaas ku soo bandhigaan marmasyadaasna waxaa ka mid ah oo si hoose loo sii ogaaday inay dhihi doonaan marqaatiyaal baa naga maqan marqaatiyaashaas oo horeyba loo sii sheegay inay yihiin dad Soomaali ah arrintaasi ayaa marmarsiyo ah isla markaana ay doonayaan inay dowladda Kenya ku marmarsiyato maxaa yeelay meeshaasi wax u yaala ma jiraan oo dhulkaas iyo biyahaasba ummadda Soomaaliyeed ayaa iska leh iyaga ayaana ku guuleysan doona daawadayaal waxaan leenahay muuqaalkan fadlan sii sheegareeya si dad badan ay Soomaaliyeed u gaaro isla markaana ay u duceeyaan wakiilada Soomaaliya in ay ku guuleystaan dacwadaas waan hubaa inay ku guuleysanayaan dhankeena waxaan leeyahay guul Soomaaliya guul baa leeyahay Soomaaliya FIFA Soomaaliya lana insha Allah taala waan guuleysan doonaa maalmahaasina si live ah ayaan halkan ugu sii tabin doonaa adinkana waxaan leenahay daawasho wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh